xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo Muqdisho maanta kulan ku yeeshay ayaa sheegay in xilkii ay ka qaadeen gudoomiyihii ururkaasi Batuulo Sheekh Axmed Gabale waxaana ay ku tilmaameen in Batuulo muddo xileedkeedu uu dhamaaday 2 sano oo dheeraad ahna ay ku darsatay. Haweenkan xubnaha ka ah ururka haweenka qaranka ayaa sidoo kale shaaciyay in ay dhisayaan guddi ka shaqeeya qabashada doorashada gudoomiyaha ururka haweenka qaranka. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii la hadlay warbaahinta. Maanta waxaan go'aansanay inaan xilkii iyo kalsoonidii aan u dhiibanay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed oo 2 sano ku darsatay inaan ka qaadno maanta wixii ka dambeeyay no more. Raali ma ka tihiin in mas'uuliyaddaasi ay noo qaado guddi haweena oo 22 qof oo aan dooranay in ay xilka guddigaas oo ah guddi ka shaqeyn doono doorasho xalaal ah oo ma aragtaa haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo daneeyahay wadankooda inay wax u qabtaan sanduuq dhigtaan ku ritaan ma isku raacnay Batuulo xilkeedu waa dhamaaday waxaan u soo istaagaynaa doorasho gabar kastoo Soomaaliyeed maamul goboleedyada waxaan ogeysiinaynaa 5 maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa Batuulo inay gabdhaha Soomaaliyeed maanta wixii ka dambeeyay ayna mas'uul ka ahayn oo aynan hogaaminaynin. Waxaan rabnaa doorasho xor ah wasaaradda haweenka inay cadaalad ka noqoto ee doorashada halkaas suubiso. Annagana waxaan rabnaa guddi oo ah 22 qof ka bilaabata sidaasaan ku hogaamin doonaa dalka. Gabadhiina hogaamisana aan ku raaci doonaa. Gabdhaha Soomaaliyeed annaga ururka haweenka kala go'maana suubinin. Waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ha jireen ha joogeen halkoodina halkii ka soo wadeen. Dowladana waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed waa tiirkiini waa halgamayaadiini. dowladda gabar haysanin oo aanan gabar dalkada mashxaradeen ama gabar aanan gulufka colaadeen aan garabkeeda taageerin ma guuleysatay. Gabdhaha inay taageeraan oo ay la shaqeeyaan diyaaraan nahay. Haddana waxaan leeyahay Batuulo xilka waa ka dhacday. Maanta waxaan soo taagay waa dareemi kartaan haddii ururka haweenka xilkiisa la isku dhajinaayo ama xil lagu dhiibay la isku dhajinaayo mas'uuliyiinteeni madaxdeeni ayaa hore u joogay. nin walba markii waqtigiisu dhamaado ayuu ka huleelaa isagoo sharfanna oo xilka iska dhiibaa. waxaa dhacday walaasheen gudoomiyaha ururka haweenka qaranka shalay annaga dooranay kadib markay tixgelin weyday kadib markay gabdhii Soomaaliyeed aruurin weyday kadib markay u dhaga fududaan weyday hadalka aan leenahay ee talada aan soo jeedinayno kadib markay ku sheegatay abaar inay jirto oo abaartii aan sugnay ilaa dadka iyo abaarta ka baxaan kadib markaan muddo u calool adeegnay walaashaya waxay tiri wax aan dhiibaayo ma jirto. waxay ahayd mandate-keed 4 sano waxaan samreynay 2 sano waxay ku darsatay 2 sano walina ma ogola inay xilka gabdhaha Soomaaliyeed ku wareejiso. walaalayaal xilku waa meerto gabar walba oo Soomaali ah ayaa xaq u ah. Isqabsiga u dhaxeeya ururka haweenka qaranka lana xiriira muddo xileedka Batuulo Gabale ayaa maalmihii la soo dhaafay ahaa mid taagnaa waxaana la ogeyn sida uu xal u noqon doono xilka qaadista haweenkan ay sheegeen inay ku sameeyeen gudoomiyihii ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale.